doorashada cidii laga rabay inay qabato xilileyda ah afar sanadleyda ah inay u muuqdeen dadaan qaban rabin amba qalloocin rabo taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano isla markaasna dadka Soomaalida oo aan anaga ku matalaynay ay bixiyaan barees qaali ah amba tadxiyaad amba maxaanka sacrifice amba nafurid ay u sameeyaan dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin ay u dhinteen labada arrimood meel marinta ah in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan waxaan hor istaagnay anagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxa uga maqan dad nool ayaa uga maqan xabaalo ay ku jiraan ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya abayaashoodii inay darbi u ahaayeen diidmada arrintaas midowga murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin inay ku waayaan xorriyadoodii oo lagu dhaawaco sumcadoodii oo lagu dhaawaco welina waxaan ku taaganahay jidkaas waxaan ku qanacsanahay maanta in doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayay oo dadaalkii ugu dambeeyay uu ahaa kii ra'iisul wasaaraha lagula wareejiyay in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday la qalloociyay jidka laga leexiyay waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan dareenkaas asaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida qof kasta oo kamid ah oo garaad leh inuu la qaado midowga murashaxiinta waxaan rabnaa sidaas daraadeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaheeda kala gedisan iyo bulshada iyo inta dalka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka inaan la wadaagno rabnaa waxaan si dhamaystiran u qanacsanahay sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keeni karaa si meel kale oo ka keenay annagana hadda ka hor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga foolxun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilowday shirka carta ka soo bilowday sidaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkaan uga dhaca oo aan ku salaynayno ka tashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaankan boobka ah burburinta looga samata bixinayo waxaa la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida hadday noqon lahayn civil society-ga hadday noqon lahayn culimada hadday noqon lahayn dhaqanka hadday noqon lahayn dhalinyarada hadday noqon lahayn warbaahinta haddii ay noqon lahayn ciidamada iyo saraakiisha iyo garaadleyda Soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan si ay wax ku soconayaan ma ahan kulamadaani sidaas way ku salaysnaayeen midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo kaalintii sanadka hore uu istaagay ayuu u taagan yahay cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeeraynaa inay toosintaa ka qayb qaadato nala diido hanaanka wax ku bilowdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo waa mahadsantahay